تعال daawadayaal magaalada Muqdisho ayaad si toos ah inooga maqleysaan. waxaa Muqdisho ka bilowday isrisaaseen ama dhawaqa rasaaseed ayaa aad looga maqlayaa aaga madaxtooyada, gaar ahaan taalada Daljirka Daasoon. dhawaqa rasaaseed ayaa aad loo maqlayaa. daawadayaal dad badan ayaa haatan ka soo baxaya aaga hadda dagaalka uu ka socdo, oo ah taalada Daljirka Daasoon ee degmada Boondheere, gaar ahaan wadadii ay degeen madaxweynayaashii hore oo hotel Naasa Hablood, taas oo iyana ku aadan isla madaxtooyada Soomaaliya. waxaa soo socdo dadweyne ka soo baxsanaya daryanka rasaasta. hadda ayaa waxa ay u muuqataa mid bilaabanayso jug culus. allow inaga badbaadi, ummadana badbaadi. lama ogo dagaalka ilaa hadda cidda u dhaxeeyo.
اي عنك لن يسهل لك يا والدتي اي شاء اي صاحبي اي عنك يا ابوي daawadayaal habeen wanaagsan weli si toos ah ayaa inoo daawanaysaan waxaana ku sugannahay wadada isgoosyada u dhaxeysa Siinay iyo isgooska Boondere meel aan markaas inaga fogeyn ayay haatan waxa ka socoto dirir ama isku horimaad lama garanayo ilaa hadda cidda sida saxda ah ay isku horimaadkaas ay ku dhaxmareyso inkastoo aaga lagu dagaalamayo ay tahay wadada hormarta madaxtooyada Soomaaliya taalada Daljirka Dahsoon ilaa guryaha Shangaani ayaa lagu soo waramayaa inay markaasi rasaastu ay ka socoto lama ogo sidii hore u dhici jirtay oo kale in ciidamada dawladda ka wada tirsan ay markaasi haatan isku horimaad u dhaxmaray ama booliis ama military ha aadee ama ciidamada kale balse waxa hadda aan xaqiijin karnaa waxay tahay in rasaas ay socoto si xaqiiq ah looma ogo balse waxa arintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo magaalada Muqdisho ay markaasi mushrixiinta xildoonka ah ay ku dhawaaqeen in banaanbax ay qabanayaan bari aysan jirin cid hor istaagi doonta taasi kadib waxa dhacday in ciidamo markaa kala taabacsan mushrixiinta iyo magaalada Muqdisho waa gaar ahaan kuwa dawladda inay markaas ay magaalada aad loogu arko iyagoo dhowltusyo ku sameynaya marka lama ogo in ciidamadaasi ay isku dhaceen in kale balse rasaas ayaa socoto
daawadayaal rasaasta ayaa markaasi daqiiqado ay tahay mid aad markaasi la isku weedarsanayo, hase yeeshee mararka qaarna waxaa moodaa in uu markaasi dagaalka uu joogsaday, inkastoo xaaladdu markii as dhahdo way qabowday ayaa haddana dib loo maqlayaa rasaasta tii la maqlay mid kasii xoog badan. daawadayaal waxaanu ku sugannahay isgooska boondheere meel aan ka fogeen, taasi oo markaasi ah taalada Degmada Daasoon ayaa lagu soo waramayaa in haatan ay markaasi israsaaseyn ay ka soconayso oo markaasi ay rag huweysan ay isku dhaceen, inkastoo aan la ogeyn in markaasi dadka dirirtu ka dhexeyso ay yihiin ciidamada ilaalada u ah musharaxiinta iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo markaasi caawa oo dhan magaalada Muqdisho lagu arkayay gaadiidkooda dagaalka iyagoo isbaryaa, waa iyagoo markaasi gaaf meeraya magaalada islana jooga meelaha qaar ee magaalada Muqdisho. daawadayaal saacadda geeska Afrika ayaa waxa ay tahay 7 saac iyo bar, xaalka magaalada Muqdishona qaybo ka mid ah degmooyinkeeda ayaana degnayn, gaar ahaan degmooyinka waqooyi sida Shangaani, Xamarweyne, Boondheere, Xamar Jajab iyo degmooyinka kale ee dariska la ah Cabdicasiis iyo Shibis. rasaas ayaa aad loo maqlayaa oo taasi oo ka dhaceyso taalada Degmada Daasoon. degmooyinka kale qaar ayaa lagu soo waramayaa inay yihiin kuwa nabdoon marka laga reebo degmooyinkan ku xeerarsan waqooyiga. ma soo qaxdeen daawadayaal halkan waxaa maraya dad ka yimid ama ka soo hayaamay goobaha dirirtu ay ka socoto. waa mid ka mid ah dadka markaasi halkan maraya, waxa uu leeyahay sida aan gurigeyga ku taga ayaan la ahay, adiguna ma leef ayaa ku jirtaa. waa mid ka mid ah dadka markaasi magaalada Muqdisho ee xaafadeeda ku dhex lugeynaya ee xaafad fog u socda ayuu kaasi ahaa. waa tahay daawadayaal mar kale aad ayaad u mahadsantihiin. waxaa markaasi idinkala soo hadlaynaa magaalada Muqdisho oo xaaladeeda caawa markaasi yara kululaatay oo rasaas ayaa markaasi muddo daqiiqada rasaas soconaysa ayaa la isku weedaarsaday. haatan xaaladii waa ay degan tahay daawadayaal, lama soo sheegin ilaa hadda sababta keentay in la israsaaseeyo iyo cidda dagaalantayba si sax ah, laakiin daqiiqado ayaa halkan rasaasi ay ka holacday hadda, balse waa yara qabowdahay. daawadayaal habeen wanaagsan, wixii ku soo kordhay mar kale ayaan isku soo laaban doonaa haddii waqtigu uu inoo saamaxo. hadda ayay rasaastu dib ka bilaabatay sidaad maqlaysaan, rasaastii ayaa xoogsatay daawadayaal.
xaalkii ayaa marba dhan u kululaanaya. Hadda xoogaa waxaad moodaa inay yara qabowday oo la kala joogsaday, balse mar ka dambeysa ayaa haddana mar la isdhaho waa ay nabdoontaho waa la isdhexgelayaa ayaa haddana mar kale dib u bilaabanaysa rasaas. qaar ka mid ah dadka degan degmada Boondheere ayaa jidkan oo aanu taagannahay oo ah isgooska Boondheere jidka u dhaxeeya ee isgooska Siinaa galaya waxay ka imaanayaan dhinaca madaxtooyada. Waxa ay sheegayaan inay markaasi rasaastu ka soo carareen oo ay markaa u socdaan degmooyinka hadda nabdoon. qaar ka mid ah dadka halkan ayaa hadda si hoose ugu sheegay inay u socdaan degmada Kaaraan oo ay halkaasi u sii aadayaan si ay nabadgelyo u helaan. daawadayaal aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. taas ayaan kusoo gabagabeynaynaa live-keeni koobnaa ee socday iyadoo markaasi muqdisho caawa rasaastaas aad maqlaysaan ay markaasi si goos ugu socoto. wixii kusoo kordha insha allah nabaday.